مصر حلال ما أهل قف موتاي عنقاس مصر ولا بحكي رادينايا waxaad nala wadaagtaa qisadii intaad shaqadan ku jirtay kuwa xanuun ka badnay dhanka baafinta markaa ka hadal reerkeyga shalay markaan guursanayay kuma baahnayn xabadka quudinta jooji markuu taali xoogan ku samaysay wacallam ahayn runtii gabadhi ninkii la baxstaa ya gabadhi ninkii la baxstaa astaq qabiilkaaga yaa waaye xamar maa degnaa jirtay dibadda maa ka timid dadka qaar ay yiraahdaan inaan maartay isqabsigaas faa'iido badan aan ugu jirto muunka wad ma aan geli karaan hawsha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشنا قيمها هي قدرين تمضن ميلو بواد جوكتان يمر ربا انت سود وهذا كنا سود وهذا برامج كودي ولي وهد مشو ونيقو هد من على عيد قلا يا ادنا سعودية مر والبي ميلو با انشو ما انت waxaan soo booqdinay walaalkeena oo hal door ah hadii aad horay u dhageysatay heestii iyo ku dhicin ilmadu dhir abaarsatay isha sacabka mari maanta waxaan joognaa xarunta ilintir Cabdicasiis Reeli oo dad badan ay wada garanayaan dad badan oo aad u walwalna ka farxiya la joognaa Cabdicasiis soo dhaw farxad ay tahay maanta inaan ku soo booqdo oo waliba xafiiska aan ugu qaabishay فماسنت هرت لما جرب هاي حشوتين مركو رايد جوري وريسنايسو إن عادي أمان صلاة وعشان هذيك كله أمان معنا رنت فان معنا صدوا نحن كوسدوا إن برامج كيجا وحن يا إن ما أنت كاوريس إنه أما واحد بدن كوجا إنه شقدنا مهم كذا هي سيد يقول بتعرف نولاد كاجا أنا وحن كوجا أنا عبد السرية اللي بالمجا عجوز دحين والله هذا من صدوا هذه يقول هذا ما أنت جن الله هذا مرتكو أهي لكن هذه أنا مرتئي تاعي وأنا كفر حسنا هاي إن هالكلام كلنا إلى أن كل مية مجاعيجا ضد بدنا إويديان لكن مركز دم بوايبرتين عبدالعزيز عبد الله محمد تسوى مجاعيجا لكن عبدالعزيز ريو أسكن الناس حلقة السول كان اللي هاي إيه بحذي وكاسة waxaan hayaa amaano wahay inaad markaaga hore wariye ahayd ilaa hadda waa xilliga ayaad isla jaan qaadeen wariye waa tahay laakiin hadda boos cajiibad ku jirtaa wariye laguma dhigi karo sama fale si gud baa tahay oo maaragtay laakiin sidee baad iskula jaan qaadeen ama saaxada warbaahinta ku soo gashay markaaga hore wallahi markii hore waxaan ku soo galay qoritaanka wargeysiyo iyo jaraa'idii magaalada ka soo bixi jiray arrimaha bulshada ahaa aan qori jiray anigoo yar oo iskuuley ah laakiin markaas training 6 bilood ah oo saxaafada cimro ka dhigtay ustaadkaygu wuxuu ahaa New York teamka as group ka ahayn oo markaan qalin jabiyay aan u dhawaa waxa kamid ahaa maxamed doore team noocaas oo kala markaas kadib waxaan bilawnay wargeysiyo yaryar inaan maqaalo ku qoro oo magaalada ka soo bixi jiray arrimaha bulshada jacaylka sheekooyin noocaas oo kala waxa saxiisan jiray markii dambe December 2003 waxa ay suura gashay inaan si freelancer ah ula shaqeeyo Radio Banaadir kadibna tababaraan helay toos xilligaas wixii ka dambeeyay waxaan ku biiray Radio Banaadir dadka gurgurka badan ahayn aniga muddo qaangaarnimo waxaan ka shaqeynaa idaacadda Banaadir meeqa sano ku siman adiga waxaan ka shaqeynayay laga soo bilaabo 2004 bilowgeeda ilaa iyo 2000 iyo waxaan soo gaaray iyo 10 iyo 8 miya meelahaas soo gaaray meelahaas soo gaaray waa tahay social media nooga waran markii dambe ee adduunka YouTube iyo Facebook iyo xaaladaas loo guuray wallahi ani markii aan idaacadda ka shaqeeyay aan ku dhameystiro muddo idaacadda joogay kadib company aan ku biiraan ka shaqeynayay macalna waa ahay saxaafadda dhigi jiray oo dad badan oo macalin u ahay ayaa xataa qaarkood telefishinada dalka jira maanta madax ka noqday telefishin qaranka oo aan saxaafadda u bilaabay laakiin dadka faano oo sheekeeyo hadalka badan mihi kaliya ana hooshayda aan jeclahay inaan gudaha u galo intaas meherad saxaafadan ku shaqeynayay xitaa marka idaacadaha ka shaqeyn jiray telefishinada waxaa muhiimadda saari jiray oo aan xooggiga sii jiray toddobaadka maalin dadka jilicsan oo waxaan qaban jiray barnaamijka dhibanaha qarsoon oo waligeyba aan jeclaan ka shaqeeyo oo ah qofka dhiban ee bulshada ku dhex jira ee magaca leh amba aan magaca lahayn ee duruuftu wiiqday in dadka la tuso arrimaha bulshada aad u jeclaa waxaan ka shaqeyn jiray afurinta dadka magaalada mar kasta oo dad qaxa magaalada banaankeeda ay yimaadaan oo barakacna waa caawin jiray markii dambe waxaan ka soo shaqeeyay telefishinka Soomaali Cable oo madaxan ka soo noqday qaybta newska tafatirka howlo badan aan ka soo qabtay oo telefishinka ugu dambeeyay aan ka shaqeeyay oo ahaa intaas kadib aniga waxay u dhalatay goor dambe YouTube iyo Facebook labadaba waa lahaa laakiin baahiyaha aan ka hadli jiray waxay ahayn kuwa bulshada quseeyo aniga weligay Facebook YouTube soo fiiris qof ma ahayn horta
qof icaayan uma jawaabin guuleyso dad badan oo qabsadaa jiray oo ugu dhagay wax iga sheegay waxa isku dayay media ka hoos inaan ku xalino qofka aan waco wuxuu iga tabanay aan weydiiyo dadka qaar ay yiraahdaan inaan maartay isqabsigaas faa'iido badan aan ugu jirto muranka wad ma geli karaan dhaha u sheegaa fiis hadda moogta in la isqabsada fiis ku jira wixii ka dambeeyay media waxaan bilaabay barnaamijkan la yiraahdo Haasawaha Toosan oo aan kaga hadlo duruufaha dhanka shukaansiga dhalinyarada jacayl kula irdhoobay kuwa ahdiyada iskaga baxay problemada oo kiis waxaa jira aan xaliyay gabar Mareykan ku sugnayd oo aad dadka ay ugu amaaneen gabadhaas wiil saaxiib ahaayeen kaniin siiyay kadibna uur u yeelay waxay damacday cunugan iska soo rido markii sida ay dhacday kadib problemku waa xoogaystay America waa taqaan shuruuca jirto waxaa loo sheegay cunuga inuu muwaadin Mareykan ay ridi karin way la soo xiriirtay waxaa u sheegay in caloosheeda dukumentiyada ku jira in caanada ay caawin karaan ninkaas ay ku tiraado amba waa ku dacweyna amba ay la soo maartay la soo ekaaw sidii dad ehelkeeda kamidana ay u sheegto xitaa hadii familka aad uga baqayso inay guurto oo ay qayb kamid ah familku u jilcan ay durufteeda u sheegto sidii ay sameysay ninka waa la hadlay gabadhii ninkii dib la isugu daray wiil ay dhaleen waa wiil u dhashay gabadhii usay ii sheegtay alxamdulillah dad wanaag ku nool yihiin barnaamijkaas Haasawaha Toosan anigoo wado markii dambe waxa igu bilowday in hooyo ay la soo xiriirto ay leedahay waxa u baahanahay wiil iga maqan inaan baafin ku sameeyo waxaan weydiiyay marka hooyada wiilkeeda soo uga maqan yahay waxay tiri aabiisa ay qaatay isagoo nool wuxuu leeyahay waa dhintay wiilkaaga xaqiiqda la wiilku oo dhintay hooyada markaan wareystay aabihi ay la soo xiriiray xaq uu leeyahay si balansiga u soxo haddana aabihi aan wareystay kiiskiisaas markaan ku sameeyay kadib waxa gacanteeda ku soo dhacay kiisas badan oo baafina waxaan dareemay marka barnaamij loo baahan yahay inuu yahay isla markiiba magaca u sameeyay ilintira u bixiyay magacaas habeen ugu dhashay anigoo meel qaacil u tumaayo joogo oo tartiib aniga dadka music aad jecel mihi saaxiibadii qaaci sameysanaayeen meel gadaalan fadhiyay waa casheynay marka waxa igu soo dhacday in ilinta u bixiyo sababtoo qofka soo ilinta ka socoto ku imaana marka dambe oo helana ilinta waa laga tiray Soomaaliya isagoo faraxsan u tagay ina labada isku darno oo aan ilin oo qof ka socota iyadoo la tiray magac waxaan ka dhignay ilinter wixii ka dambeeyay kiis badan galay waxa uu saameyn badnaa kiiska Jijo aragta amalena gabadhi oo maartay dad fara badan su'aal iga weydiiyeen oo ka waran la leeyahay ciyaalkii dugsiga markay ilmeed u tagaan ay leeyihiin naahoy ma ogtahay in hooyada ama wiilkii leeyahay hooy ma ogtahay hooyada inay wicil tahay ba hooyada soo weydiinay wicil tahay Jijo urku taalo xoogan ku sameysay wicilna ma ahayn runtii qof ibn xalaala oo hooy aabalaha ahayd laakiin mujtamaceena waa taqaanaa marka aabaha uu san muuqanin eeda badan imaanaya Jijo kiiskeeda ku guuleystay hooyadeeda heshay hooy aabo dhintay u sheegtay maanta Jijo dadka ila shaqeeyo ee caawiyo dadka igu soo xiray kamid tahay idoo faraxsan waliba kiiskaas kadib diiwaangelinta ayaa bilaabatay dad fara badan hadda aan kula hadlaayo oo 330 something aan marayno wali waxaa jira dad ii diiwaan gashan oo listiga igu jira oo boqolaal ah oo sugaya in loo sameeyo baafin dadka qaar waxaan dhahaa maxaa aniga bis igu timaadaan oo youtubers badan jiro wariyaal badan jiro laakiin waxay dareemeen aniga inaan fahmay qaabka wax loo raadin karo ogowna marka hodman maanta la daawanayo waxba lagu bartay aniga marka wax badan ma sameyn kaliya waxaan sameeyay geedkii baadada lagu xiri lahaa ana awahey iska reer miyu ahaa laakiin aabay iyo aniga magaalada Muqdisho ku dhalanay laakiin away wuxuu iga sheekay jiray waagi hore dadkii yaraanta magaalada soo galo away wuxuu idhahay baadiyaha markii la joogo waxaa jiro geed baadida lagu xiro geedkaas waxaa imaanaya qofka wax ka maqan yihiin iyo qofka wax soo helo marka wax la weyn karo ma lahan waxaan ku fikiray marka geedkii baadi qabadka oo social media ka dhaxeeya inaan sameeyo geedkii aan sameeyay marka Facebook page-kayga iyo YouTube-kayga dhamaan barayga bulshada hadda waa baadi qabad waa geedkii hadda wada marka ay ku fudaanay baafinta in horanta laga helo su'aasha la suudiyo taas waa sababtoo ah ayadoo 300 ay tahay 200 something asalay dadku waa yaabin ma sha Allah qofkii wax ka maqan yihiin oo dhan bejiga daawada aadiya maalin ama familka ay ku soo raadiyaan yaraa wuxuu ugu yiri aniga hooyaday ay tuurtay inaan family helin waa ogahay laakiin waxa isla ameenta maalin calool dabacdo hooyo ay tiraahdaa wiilkaas hadda ka hor tuuray saas u daawada yiri bilaa ilaa dhamaad way xanuunjisay marka qofku wax ka maqan yihiin waa iimaada oo baafina u sameeyaa qofkii aan hadli karin oo wax tabanayeen isla geedkaas oo rajadiisa ka sugaa ajaib maxaa kugu dhaliyay shaqadan warbaahinna badan jira
hay'ado badan oo baafinta ku shaqalaha jira dad badan oo wariyaal waaweyn oo arrintan isku hawlin baa jiro adiga ka daaweyn markaan dhanka xitaa adoon dhalan ku shaqeyn jira xataa adiga maxaa kugu dhaliiba arrintaas leeda wallahi duruufo jiro dadka ilaahayna waa wafjiyay laakiin waxaan ku sheegaa hodanay aniga magaalada Muqdisho aan ku koray ku barbaaray wax ku bartay aniga markii jaamacadda aan galayay hooyaday iyo aabahay maas media gal amba saxaafad dhigama dhihin laakiin bulshada waxay uga talisay maadaama aan saxaafadda ku dhex jirto yaraan aan ku soo gashay warniyo media baro sidaas aniga filligeyga waxay inaan saxaafad waay weli kama dhex bixin iyada ku dhex jira marka saxaafadda dadka waana looga faa'iideey karaa waana lagu dhibaatay karaa tusaale waxaan kala jeedaa maalinta doorashada ay dhacaysay maalinta ka horeysay aan waxaan jeclaystay inaan lacag shilin Soomaali aan qaybiyo oo dadka Soomaaliyeed aan u duceeyo in Ilaahay madaxweynaha istaahilo ee mudan ee dalkan dhibaatada uu ku jira ka bixin karo badbaadi karo in Ilaahay noo saaro lacagta markaan qaybiyay cid kasta way ku farxday aniga xataa wada wada maalmo kadib qaar kamid ah kuwaas waxay leeyihiin waa ognaa qofka kala jeeday hebelaa kala jeeday saamwaaye kidaa tahay kana tahay war aniga qof kala jeeday aniga gudahayga gacanta geline sootaan soo sheegi lahaa wixii banaanka yaaleen shalay waa ku faraxsanada maanta qofka taageeraysa markii la waayo waxa igu soo laabanay adiga laakiin ya islahayd ya jeclaan in soo baxa marka xilligaas wallahi aniga doorashooyin badan goob joog ah madaxweynaha jeclahay oo aniga aan rabo aan mararka qaar imaanay haddana gadaal markaan ka arkay dhaqankiisa ay la xumaanay waxa go'aan u gaaray marka ilaahay inuu ii doori karo ama noo doori karo kan fiican ilaahay waxa uga bariyay marka mid fiican noo dooro hada xasiqa soo baxay isaga aniga maartay maxallada kaliya hal ereyaan ka dhahay marka xasiq la doorto waxaan ilaahay tawfiiqda ha waafajiyo way anaga Xasan Farmaajo Shariif iyo madaxweyneyaalka wadanka soo maraba qof jecleys wuxuu noo taraayay malahanay kan ilaahayna waafajiyo ilaahay kii kasto dalka loo dhiibay khayr Allah sharu leeyahay madaxweyne ka soo wadanka soo mar sharu leeyahay dunida waa shari khayr marka ilaahay khayrkooda hana waafajiyo kan iyo kuwa soo socda waa tahay waxaad nala wadaagtaa qisadii intaad shaqadan ku jirtay kuwa xanuunka badnayd dhanka baafinta markaan ka hadalno ama alla yaabto madaxa galweys والله أبغى بديهين لكن مرة كيسان بدكو شيء حاجة تجبر سوماليات أو أيضا ير ويدا غير كذي سيدون تبع كويدو لكن لو شيء كي إن لصوت وري دت كوري وشيء كي أيضا لو كجرا درين إحنا لصوت وري أو دت كسادات أي لا ذهي أي كوريوتو قبل ده مركا معمدي سوكر سويدي متى أيضا وحاس هل كان يكتب baafina raba aniga mugta qof markuu dumar uu yahay waxaan dhahaa ma lagu qabaa saygaaga ma ogol yahay waxay dhahday saygayga hal fariinaan ka wadaa ee ila tali maxay tahay wuxuu ku yiri maanta hebel lagu yiraahdaa hebel aniga ka guursaday reerkayga shalay markaan guursanay kuma baahnayn xabadkan quutuntay maanta hadii aad social media soo fariisto aad tiraahdo aniga wacala ahay jida la soo dhigay aabahay iyo hooyaday ma aqaan dad halay leeraadi ilmahayna waa sumcad dilaysa anoo sumcad dilaysa hadii ilmaha iyo sharaftooda saas ay noqoto aabaha hesha iyo hooyada heli weyday hadaa hesho sidii la rabay oo qof qabsan karta ma lahan laakiin daawaydu aniga waa iska furaya waxa waaye ilmahayna waa ka wadanaa عيبتها كوكو كوبناني قبل واسكي المينيسا نينكي على هذا وحقولي وقرهم عنك موت وحول يعني قبل دان سمعة واتقانا سمعة الرؤية شرف ورم الرب ده كوريي وحبري السيي أنا أوك إني أبي هويا لهين وأي كوريين أنا فهمت كي وحنقول الصح وهو ذا بود هذا الردي إن كان ولا يقولون كاحي ده توهم كاس خبط ده معنى كسور إيش شيء ماشي وبيلنا دي لو سمعي بيروا اللي وقف لقادينا قبل شلب اللي مربين marka wuxuu dhahay gabadhaas waxay ku xiran tahay isqabitaankeena inta horeysanayso dadka ma kala furi kara mugta ani gabadhii ooyinayso ilmeynaysa ay ka tagtay kiisas noocaas oo badan waa jiraan kulay san dareemay marka aad ay xanuunjisay qofkii oo dhiban la caawin karin ya waa dhacda marka waxaan soo leedahay waa tahay intaas waa tii baafinta arrimihii haasawaha markaad ka shaqeyn jirtay ayadana qisoonku waa badda soo badan yihiin laakiin hal iyo mid iyo laba nooga doorba
waxaan u tabinayna sheekadan dadka inay ku waana qaataan oo maaragtay ay wax ka bedesho dad badan noloshooda